asxaabta ku xiran shan media ku soo dhawaada sheekadii cusbad libin jacayl qaybteedii 10aad markii xaafadda la yimid naf walba meesha ay ku badbaadayso waa ogeeyday waxa ay abaartay qolkii aabaheed oo ay ku wada jireen aabe warsamo iyo hooyo Maryan oo markii ay gashay ay ku tiri falis aabe aniga masaaqidad miyaan ahay maxay tahay wiilkan xilli kasta idaba socdo hooyo Maryan oo markiiba garatay ayaa la soo booday hooyo Maryan haye waan fahmayaa halkee ayaa uu ka keenay qadar oo soo galay ayaa yiri qadar aabe waliga waa difaaci jirtay falis bal caawa weydii halka aan ka keenay aabe warsame oo hadalka qadar ka naxay ayaa la soo booday aabe warsame halkee ayaa ka keentay qadar iyada la weydii aabe warsame falis aabe ma kalsoonidii aan ku siiyay ayaad burburisay halkee ka timid oo uu qadar ka keenay falis aabe halkee jiri lahaa xaafadda fartuun ayaan joogay halkaas ayaa uu iga soo waday oo waliba igu soo dharbaaxay aabe warsame haye qadar ma halkaas ayaad ka keentay qadar haa aabe balse weydii yay la joogtay wiil ayaa jira oo xaafadaas ugu yimaada waase wanaagsanaan lahayd in aan ugu tago lugtuu qaado ayaan ka jebin lahaa falis aabe waad ogtahay qadar waa uu inacab yahay markasta xumaanteeda ayaa uu wadaa saaxiibtay sureer ayaa maanta nala joogtay hooyana waa ogeed iyada ayaan u raacay xaafadda fartuun kadibna halkaas baabuur ka raacday maxaa kale sheeg maxaad aragtay qadar waxba dambigaaga been ha ku daboolin yuu ahaa ninka baabuurka korayay falis sureer ninkeeda ayaa uu ahaa yuu kale uu ahaan lahaa ninkeeda ayaa meesha ka soo doonaya haye maxaa kale qadar aabe waa beenteed aabe warsame imaqal qadar aniga gabadheeda waan ku kalsoonahay kanada dabagalka aad ku hayso qadar aabe gabadhan warkaas ha maqalsiinin anigana igu daa maalin ayaan kuu keeni doonaa arinkeeda aabe warsame qadar gabdhaha cadaadiska ka daa midda kale falis aabe waan kugu kalsoonahay arin aniga idhibayso ha keenin nin aad heshiiseen haddii uu jira ii keenso waan kugu darayaa sidoo kalena waan isukin dhaqayaa qadarna waa walaalka samaantaada oo kaliya ayaa uu rabaa falis laakiin aabe aniga ma diidani taa ee isaga ayaa nacab qaas ah ii qabo aabe warsame taa ma jirto ee orod qolkaaga aad falis markiiba waa dhaqaaqday hooyo Maryan oo intii falis iyo aabaheed wada hadlayay aan eray oran ayaa tiri hooyo Maryan xaaji falis garabka aad siinayso daa teeda kale aniga qadar waan ku raacsanahay inuu hablaha ka warhayo qaas ahaan falis aabe warsame caburinta ayaaba wax ku dheeshaa qadarna waan aqaan gabadhan waa iska dhex arkay markasta intaas warkeeda ayaa uu ii keenaa ee wiilka ka cel gabadha cadaadiskana noocan ah waxay keeni kartaa in ay meel xun isku tuurto qadar warkii aabihiis ayaa uu ka xanaaqay oo uu ka baxay qolka hooyo Maryanna oo garatay ayaa ka daba baxday oo u sheegtay in hadalka aabihiis uusan wax u arkin qadar isaga oo xanaaqsan ayaa uu banaanka u baxay waxaana uuna ka shalaayay inuu wiilka arki waayay wuxuuse naftiisa ku qanciyay in maalin uu isku qaban doono falis markii ay ka soo baxday qolkii aabaheed ayay jikada ugu soo gashay yasmiin oo waxa jira oo dhan aan ka warqabin ayay ku tiri falis alla yaska caawa mid iqabatay haddaad ogaan lahayd yasmiin oo alaab dhaqid haysa ayaa inta ay alaabti iska dhigtay u soo jeesatay oo ku tiri yasmiin oo maxaa ku helay falis ninkii qadar ahaa soo nagama kor imaan yasmiin oo ka naxda ayaa la soo booday yasmiin yaa oo muxuu sameeyay falis ilaahi ayaa i asturay oo markii ayaa uu baabuur raacay yaasiin oo ma arkin walow uu meel shishe uu ka arki karay in qof baabuurka raacday yasmiin alla maxaad yeeshay hee falis inkastoo dhirbaaxsho igu dhacday haddana markii aan guriga nimid aabe ayaan u galay oo aan ku iri sureer iyo ninkeeda ayay ahaayeen hooyana marqaati ayaan u qabsaday ilaan sureer maanta xaafadda waa joogtay oo waa ay aragtay yasmiin
ilaah ayaa mahad leh hadan muxuu sameeyay falis muxuu sameyn karaa isaga oo ciilka la dhiman rabo ayaa uu baxay aabe uu ku yiri gabadha cadaadiska ka daa yasmiin markasta taxadir samee adiga alla qadarow maxaad dhib badan tahay falis wallahi waa la yaabanahay sababta uu ii daba socdo falis qof danteeda moog ma aysan ahayn markiiba waxa ay isku qadcisay in ay taxadir badan sameeyso waxayna saaxiibkeed yaasiin ka dhaadhicisay in maalmahan aysan kulmi karin walow aysan xaaladda dhabta ah u sheegin haddana waxa ay u sheegtay in xaafadda ay buuqsan tahay waana uu ku raacay yasmiin iyada jaceylkeedii halka dhinacaha ayay waday oo ay habeenadan qaar mursal kulmi jireen iyadoo aan hadal jacayl is oran ayaa la kala tagi jiray haddana qalbigeeda waa u wanaagsanaa oo waxa ay qabtay in maalin uu xaalkooda sidaan ka fiicnaan doono mursal isaga marnaba kama labanlabeynaynin inuu aqbalo in naftiisa uu siiyo yasmiin haddana qalbigiisa saacad kama go'in jacaylka dhabta ah ee uu u qaaday falis sida ay tahayna uma muujin yasmiin walow aamusnaantiisa ay wax badan yasmiin istusin jirtay qadar waa ay ka gooneed in wiilka cusub ee ay falis la hayso in maalin uu isku qabto habeenadana waxa ay ku noqnoqonayeen xaafadda fartuun isaga iyo saaxiibkiis qaasim oo arrimahan isaga laaluush gaar ah ku qaba oo habeen kasta la cashageyn jiray asxaabta la socda jimcada dambe hadduu eebba idmo qaybtii 11 insha Allah